madaxweynaha Trump wuxuu ku khudbaday Israa'iil dhulku ku yeeray عالم الإسلام عربي عجمتي سبا نتنياهو إنه طليه رئيس الوزراء إسرائيل إنه طليه خليج كالعقب وكبرت تريليون نقاط خليج كان الشدال كودي بالا قراعية مقالين كودي بالا قراعية حريه كويا لا قراعية دينهان ما بنانا إن نهيل نقرنه إسرائيل الكبرى سيدي الله سبحانه لها إسرائيل شوي بلايان إنه دوينين سوتشيدن ولد قال هذا كم شره لكن تلابون كل المسجد والسعودان هذا والسعودان ده قال إن شقق كلهين بين قلينا كلام وحبا إن نوهيسن شقنا كلهين سكن الدفاع كرينين أي نوصي سعناين نقول وحبون مدحدين يا متشهين يا سلادينتين يا عقيشين يا قبائل كانوا بين سيفي عن فكرة إسرائيل سدح لير أو مريكنا مركو مدفع وصور دافو أيو شين لير أو إسرائيل الذي تجي يا مركا وحكى استوى سوق جنان كو حريها عيدنا وكل يودن كعراق بقى هرتجا هدور دافو حريها يردن كل يوم بقى هرتجا هدور دافو ودترينيان كمركو كيسوين تاجم بقى هرتجا hadduu intaas soo dhaafo markaas wuxuu soo galaa shan leeyar oo kala dambeeya oo Israa'iil ay leedahay markaas oo ku jiro saadkii Mareykan oo ku jiro maxay wixii ay iyagu samaysteen saddex iyagu samaysteen iyo laba Mareykan leey ay ku jiraan shan leeyar oo ka dambeeya Israa'iil waxaan arkaysaa ku dhacdhacaya waa sideed meelood uu ka talaaba sideed difaac oo kala gadisan markuu ka talaabay buu Israa'iil gaadhay muslimiintuna waxay dhexda maanta ugu jiraan سيب أهل السنة مشروع أنا لا ناقة ولا جمل أنا وحبك كل حين دشوا ده اللي اسكت ليا يا استليا لما مشروع عقله المشروع السفوي يا المشروع الصهيوني مشروع الصهيونية وإسرائيل الكبرى الرادينية إسرائيل تبلارا oo dunida in badan oo kamid ay u khidmaynayso oo wadankii dunida ugu weynaa uu madiidin u yahay mashruucaas inuu fuliyo iyo mashruucka ka soo horjeeda oo mashruuc safawi ah shiica raafida wala iyaguna dadka ba ahlu sunna ugu nacab kuwa la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah الصحابة النبي محمد أردن ودد ونكسر وحكى لصار مينو هي قاركود لين أفر بابا مؤمن كهاي أنت كلواتي من الفقودي أو أركا تاريخ خرطك تي إن يدب سعودية مركي أفغانستان لو دولي مريكان يجا وفره ودو عاوي عراق مركي لبابي إني يجا لبابي يوردن كلواتشو سوريا مركي لا توميي دي حزب الله هي كوحدودا u dagaalamaysa iyo Iran generaladeedii waxeeda yey la dagaalamayeen dad faramaran oo ahlu sunna oo dhulkoodii laga kiciyo qaxootiya oo Suuriyaana la dagaalamayeen idan waa laba mashruuc oo midna aanu ahlu sunna waxba u haynin laakiin marka la eego diin ahaan mowqifkeenu muxuu yahay موقف كان وحويان ظلم إلهي ما جعل عندنا قال يا مسلم طون عندنا إلا ظلمية إيران ما أنت ولا ظلمية إذا مكرم يسنا هنا أهل السنة خير وضن هي وحملاني هدنا لكن ولا ظلمية إلهنا قرآن وحكت المامية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي وحلي وركوا مؤمنين تقوموا لله إلهي مركز وحلي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أيها الأحبة دينهان ما بنانا inaynu hiil u noqono Israa'iil الكبرى sidii loo sameyn lahaa Israa'iisha weyn
israa'iisha weyne waa masar qayb ka mid ah waa sacuudiga qayb ka mid ah waa ciraaq inteeda badan waa suuriya qayb ka mid ah waa lebnaan waa urdun intaasoo la isku daro ayay waxay leeyihiin israa'iil baa xaq u leh inay qabsato trump iyo netanyahu iyo kooxdiisu waxay u arkayaan waktigani inuu yahay waktigii fursaddu jirtay ee Sykes Beacon dib loo bedeli kari lahaa. Sykes Beacon waa mustacmarkii hore ee Faransiis iyo Ingiriis markay dunida qaybsanayeen iyaga xariijimaha yaryar u jeexjeexay. waa laba nin oo ka kala tirsan labada wadan ayaa Sykes iyo Beacon labadan nin waxay isla heshiiyeen sidan maanta caalamul islaami u googayay inuu googooyaan inta Ingiriis oo qaado inta dawlad ka dhig inta caynkan ka dhigna inta saa ka dhigno xuduudahan iminka aynu isku wada haysano qolada saajeexday awal muslim bay isku ahaayeen khilaafa Uthmaniya ka talinayay markay duntayna muslimuun bay ahaayeen laakiin muqladaas waxay go'aansatay intay dadka qaybsadaan Israa'iil la khaataynu ka joognaa yuhuudda Yurub joogtay inaan iska soo raro oo meel dejino caalamul islaami baa meel laga dejiyay kuwaas waxay ahaayeen Faransiis iyo Ingiriis Mareykanka imika wuxuu leeyahay dhulka ku yar madaxweynaha Trump wuxuu ku khudbaday Israa'iil dhulku ku yaray marka waxay u baahan tahay buu leeyahay dhul balaaran safiirkiisa Huckabee ee fadhiya Baytul Maqdisna waa safiirka dhan ee Mareykanka u fadhiya afka dawladda ku hadlaya isna waxa la weydiiyay Netanyahu waxaan u sheegay balka waran Israa'iil balaaran in Masar qayb la siiyo Ciraaq Suuriya oo Sacuudiya iyo Lebanon oo maxaa ku jira buu yiri qaadato maxaa ku jira buu tilmaamay yani waa wax iska suurtagal ah wax weyn ma aha oo la isku mashquuliyo idan ayuha al-ahibba Israa'iil iyo Mareykan wuxuu rabaa in Israa'iil ilaaliyo ballaadhiyada meeshana inay iyadu madax ka noqoto عالم الإسلام عربي عجمتي سبا نتنياهو إنه أطليه رئيس الوزراء إسرائيل إنه أطليه ولذلك إسرائيل سيد الله إلى لنا قواعدي سوما إلى ليه خليج كالعقب كقرت تريليون نقاط وحوش يجانا يا مقابل الحماية إلى لنا إلى لنا خليج كان الشدال كودي بالله قراعية magaalooyinkoodii baa la garaacayaa xerihii ku yaala la garaacayaa Israa'iil saddex leeyar oo Mareykana markuu madfacu soo dhaafo ayuu shan leeyar oo Israa'iil leeday tagaya markaa wax kasta ay soo ganaan koow xeriyaha ciidan ee uu ku leeyahay wadanka Ciraaq ba ka hortaga hadduu dhaafo xeriyaha ay Urdun ku leeyihiin ba ka hortaga hadduu dhaafo Mediterranean-ka markabkiisa weyn ee taagan ba ka hortaga hadduu intaas soo dhaafo markaas wuxuu soo galaa shan leeyar oo kala dambeeya oo Israa'iil ay leedahay markaas oo ku jiro saadkii Mareykan oo ku jiro maxay wixii ay iyagu samaysteen saddex iyagu samaysteen iyo laba Mareykan leey ay ku jiraan shan leeyar oo ka dambeeya Israa'iil waxaan arkaysaa ku dhacdhacaya waa 8 meelood uu ka talaaba 8 difaac oo kala gedisan markuu ka talaabay buu Israa'iil gaadhay kuwii kuwa waliba bilyanuu siiya kuwii trilyanada siiyeyna trilyan bay siiyeen kuwii trilyanada ugu deeqayna waa samadoodu waa makshuuf wax kasta ku dhacaya bale waxa la rabaa intay dagaalka galaan markay si fiican isu galaan inuu Mareykan ka baxo la yiraahdo idinku istilay labadiinaba hukaan idinka iibinayna si Ciraaq iyo Iiraan 8 sanadood bay istilayeen labadaba hukaa laga iibinay la yarqabuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul fasiqun baylahi ilaahi wuxuu la yurdunakum bi afwaahihim markay idin la hadlayaan way afmacaan bay idin sheegayaan ahdi baynu kala qoranaynaa annaga idin ilaalinayna kuwa annaga idin kala hadlayna ma soo gudbayaan kuwa kan saasaan ku oranaynaa qawaaciddeedana waa nasiinaysaa markay kula hadlayaan afka macaan bay sheegayaan إلهي وحلي وتأبى قلوبهم وحنا يفكك شيء قلبي جودكم أجرتم بل إلهي وحلي وأكثرهم فاسقون أنتوا ده بدن وفاسقين عهود ملك رأينا هو حلي العراق وحجار سينيا دكتاتور باهستو حرية العراق وحلو بعد جوانتناما يلو قردت كده يا أبو غريب
iminka Epstein files baa laga hadlaya shalayna Abu Ghuraib bay rag iyo wixii Ciraaq la qabto dhan inta la qaqaawiyo in la yiraahdo dusha iska fulfuula oo dusha la iska saaro oo iyagoo dusha iska wada saaro waliba leyd lagu qabto ninka caruurta ku faraxumaynaya Jazaa'irka iyo Mareykan u dhawaa madaxda miya adiga ku naxariisanayo wanaag ku galayo muslim kale kaaga hiilinayo ku hagaajinaya wali dagaalada kuma jiro laakiin talaabooyinkoodu siday u socdaan hadday u socdaan dagaala inaan shaqo ku lahayn baynu gelaynaa dagaalaan waxba aynaan u haysan shaqana ku lahayn iskana difaaci karaynin ayaynu u sii soconnaa inaynu galno waxa habboon madaxdeenna iyo mijaheenna iyo salaadiinteenna iyo cuqaasheenna iyo qabaa'ilkeenna bayna si fiican u fakeraan sida fiican ay u fakeraan waxa weeyaan haddaa xortii waddankani hadduu xoriyey hadduu qofku wuxuu doono odhan karaa hadduu halkuu doono mari karaa halkuu meeshuu doono seexan karaa hadduu walilaahi alxamdi nabad ku haysta waad nabad waayi waa madaxdoodii kuwa meel walba lagu laynaya maaduu kaa jecel yahay hadduu kula yimaado hadduu kula soo dego maaduu kaa jecel yahay idan haddaad xor tahay ee gumaysi ha doonan waddankani hadduu xor yahay bale waxaan odhan karaa meeshan aynu degannahay caalamka ilaahay abuuree maanta dunida ka jira waa dhulka ugu xorriyad badan haddii xorriyadun qiima ay leedahay laakiin warkaalayana gumaystayanaan inagoo odhan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala isagaynu u mahadnaqaynaa isagaynu caabudaynaa inuu inaga soo jebiyo abaarta beledkeenna inuu ka dhigo beled nicmaysan meel khayr qabta in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo ilaahay wuu inoo barakeeyey inuu inoo badhaadheeyo waxa inaga dhiman in alle subxaanahu wa tacaala inoo toosiyo inta madaxda inoo ah in ilaahay ku toosiyo dariiqa xaqa innagana inuu inaga dhigo kuwii xaqa ugu taageera Gaza kuwii lagu dulminayay dunidu intii dambana waa qayladiina xataa waa ka daayeene ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu faraj khayr qaba u furo ilaahay inuu ka dulqaado balaayada haysata ilaahay subxaanahu wa tacaala gaajo iyo baahi iyo qaxoonti iyo dagaal iyo colaad baa haysteen ilaahay inuu ka saaro kuwa khaliijka iyo masaakiinta in la isku duldilayana in ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyo siiyo gaalada in ilaahay ka dulkiciyo iyagana in ilaahay ku hanuuniyo gaalada meeshooda joogta inay iska eriyaan